madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud waa uga dhamaatay xukunka wadanka waxaadna ka dareemi kartaa guriga madaxweyne hore Sheekh Shariif sida ay ugu qulqulayso dhalinyarada mudulood ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ku heebta halkan eeg waa guriga Sheekh Shariif uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dhalinyaradii ugu badnayd ee qaybta ka ahayd howlgalkii looga adkaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 2021 ee badbaado qaran ayaa gurigiisa isugu tagtay iyaga oo qaarkoodna halkaas geel waa geeli lagu caanbaxay ee reerka hawiye ay ku saareen madaxweyne Farmaajo markan Xasan Sheikh ayaa loo adeegsanaya haddaba maxaa ka socda magaalada madaxda Soomaaliya ee Muqdisho waxaan ku hayaa warbixin iyo macluumaad dheeraad oo soo baxay si gaar guriga Sheekh Shariif waa zaxmad meel la kala istaaga ayaan jirin haday tahay odayaashii dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka culimaa diinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sidaa ayaa guriga loo buux dhaafiyay waxaana dhalinyarada ay ku qulqulayaan halkaas Xasan Sheikh in gacmaha laga jeebay waa dimbile Xasan Sheikh dagaalooga Sooma qoonsanidin Xasan Sheikh maxaa qoonsantiin Xasan Sheikh maxaa qoonsantiin Xasan Sheikh maxaa qoonsantiin dagaalooga dhiigyacaba oo inuu dadka laaya rabo wasoo qataro ku jira ilaa hadda wadanka annaga ma xaqiiji karno maalinka ee xamar banaanbax nabadoon oo ka dhaco ee wadankaana doorasho ka dhacay inaad taas maanka ku haysiin waay sababtoo ninka hadda idoo la banaanbixi rabo oo dadka ku weeraray waa qodob na hor yaal waa su'aalna hor taal jawaabteeda inaan helnaa u baahannahay caalamka maanta wadankeena faraha kula jiro caalamkiina dhaxdhaxaadiyay waa ayaan daran ugu dhacday nin bulshada rayidka ka yimaaday inuu maanta dadka weeraro oo qor wax ku raadiyo oo dalkan saar raba ka yeelaa yiraan wax la fiirsan karma aniga inta tabarteedu waa ka dhiidhinaa waxa aqbali doonana ma ahan dalkan annaga iska leh madaxweynaha wuxuu meesha ku joogi karaa sharci dadka waxa kala celiyay sharciga hadii la waayo dadka ma kala cishoomayo waxa kala reebaa waa sharciga wax kala xadiyay maanta sharci ma jiro mandate ma jiro madaxweyne muddo dhaaf oo 42 cisho filada dhax fadhaa wuxuu ku fadhiyay lama yaqaano wili ciidankiyo faraha kula jira waxa uu qaadayaa tallaabooyin ka dhana madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud caasimadda Soomaaliya ayaan kaaga waramaya sidoo kale dawladdu waxay wali ciidankii ugu badnaa ku daabulaysaa deegaanada Puntland iyadoo oo doonaysa in halkaas ay kaga adkaato madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha kale ee saaxiibadiisa ee siyaasadeed waxayna doonaysaa dawladda in wixii ka dhacay koonfur galbeed oo kale ay ka dhacaan magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland toosna lagala adkaado ama toos looga adkaado hooyadii federaalka ee Soomaaliya oo ah Puntland wararkaas oo dhan ayaan soo koobayaa saaxiib soo dhawo muuqaalka like saar saaxiibadan u sii share gareey waa maasan tahay dhaqdhaqaaqi aan inaba caadi ahayn ayaa ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si gaar ah guriga madaxweynihii toddobaad ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed muddooyinkii ugu dambeeyay ninka reerkiisa iyo reeraha kale ee hawiye ee Muqdisho ku noolba wuxuu ka helayay taageero aan inaba caadi ahayn waxay u muujinayeen garab istaag iyaga oo ku taageerayay hub iyo ciidan iyo dhaqaale iyo wax kasta oo ay heli karaan oo ay lahaayeen waa kugu taageereynaa waana kugu maalgashanaynaa madaxweynaha sida aad arkaysan gurigiisa waxa ku qulqulay dhalinyaro aad u badan waliba qaarkood ciidanka qalabka si ka tirsan yihiin sida xogtu leedahay kuwa waxay ka tirsan yihiin ganacsatada reerkaas halka odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin hore ay ugu qulqulayeen guriga Sheekh Shariif waxa muuqanaysa marka hadda in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud tani ay ku tahay caqabad weyn xukunkiisana ay galaafan karto madaxweynuhu wuxuu aad ugu baqayo waa ciidan lagu daabulo Muqdisho iyo sidoo kale degmooyinka waqooyi waxay dhacay 3 Juun ilaa 4 Juun ee ahayd in howlwadaag iyo Cabdilcasiis laga maqlay daryanka hubka culus oo muddo ay ku dagaalamayeen khayr iyo shariifka qaranka ayuu madaxweynuhu mar kale diiday iyaguna ujeedkooda ugu weyn waa qalqal ay ku furaan xukunka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa muuqanaysa in xaaladu tahay mid adag iyada oo aad la isugu hayo xukunka madaxweynuhu waxa lagu eedeynayaa inuu dhamaaday dharaarihii uu xaq u lahaa ee xukunkiisa oo uu muddo dhaaf xilka ku joogo isla markaana sidii shalay uu dhaayay Farmaajo isaga la leeyahay ee ahayd madaxweynaha waxa ma dhaama nin ilmo ka dhalaya haweeneydii uu furay Xasan Sheikh hadda waxa leeyahay kursiga uu ku fadhiyo ee uu macaansanayo ee macangagnimada ku darsaday ee dadka uu ku dilayo oo ku duulayo dawlad goboleedyada waxba ma dhaama nin ilmo ka dhalaya naagtii uu hore u furay
haddaba waxaan soo gudbin doonaa sheekh shariif gurigiisa muuqaalo ka imaanaya iyo shariifka laftirkiisa laakiin puntland waxay ku dhawaaqday go'aan kaga sii daraya xiisada siyaasadeed ee hadda ka taagan maamulkaas si gaara magaalada Galdogob ee gobolka Mudug qaybtiisa puntland ay xukunto wasaaradda amniga dowlad goboleedka puntland ayaa war-saxaafadeed soo saartay waxa ay ku sheegtay in amniga deegaanada maamulkaas iyadoo xakameynaysa ay ku dhawaaqday go'aankan xasaasiga ah ee ka dhanka ah dowladda federaaliga ee Soomaaliya ugu horeyn puntland ayaa deegaanadeeda waxay ka mamnuucday siyaasiyiinta iyo saraakiisha federaalka waxayna sababta ku sheegtay inay ka hortagayso in la qalqalgeliyo amniga deegaanada maamulkaas tani waxaa la yiri xiisada ay bansiin ku sii shubaysaa sababtuna waxay tahay in haddii saraakiishii dowladda federaalka ilaa puntland ma aha dalka madax banaan Soomaaliya waa qayb ka mid ah Soomaaliya gobol ka tirsan Soomaaliya way haddii marka ay diido saraakiishii mas'uuliyiintii dowladeed waxay ka dhigan tahay sida Somaliland oo kale ayaanu goosanay ay ka dhigan tahay baa xiisada ay dab ku sii shidaysaa dadka magacaaban ee darajooyinka iyo xilalka ka haya dowladda federaalka oo raba inay qas iyo dhibaato ka abuuraan puntland kama soo gali karaan dhammaan xuduudaha iyo garoomada puntland ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga ee dowlad goboleedkaas puntland ayaa si toos ah dowladda federaalka ugu eedeysay inay hub ku daabuleyso deegaano ka mid ah maamulkaas iyada oo sheegtay inay dejinayso garoomada waxayna digniin u dirtay diyaaradaha taga deegaanadeeda waxay mas'uuliyiinta dowladda federaalka ugu baaqday inay ka waantoobaan falalka ay lugtu ay gacanta ku hayaan waxayna sheegtay inay hadda ku daabulayaan halkaas hub iyo ciidan isla markaana puntland oo xasiloonay 25 sano hadda ay ka horinayaan colaad sida maamulkaas uu ku doodayo sidoo kale puntland deegaanadeeda dhaqdhaqaaq kasta oo maleeshiyaad hubaysana ayay ka mamnuucday waxay kaloo diiday in laga qorto halkaas ciidan waxaad ogtihiin guutada konton ee afraad markii loo magacaabay jaamac takar tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyay halkaasi waxa ka dhacayay in ciidankii ugu badnaa la qoro boqolaal dhalinyarada reer puntland ayaa askaroobay ama la askareeyay oo qortay ciidanka qalabka sida loo qoray mushaaraad iyo gunooyin la siiyay tababar gaagaaban oo muddo koobana waxaana loo gol leeyahay in dowladdu danaheeda siyaasadeed ee halkaas ay kaga fuliso waxaa lagu eedeeyay madaxweyne xasan maxamuud jabinta dastuurka gudoolista dowlad goboleedyo ammaana iyo dhibaatooyin kale oo culus puntland waxay sheegaysaa baa la yiri marka ay ugu baaqaysaa UN-ka iyo sidoo kale hay'adaha kala duwan ee tallaabooyinka sharci darrada ah qaadaya inay ka waantoobaan UN-kan waxay u diraysaa baa la yiri baaq dheer si kastaba go'aankan wuxuu u muuqdaa mid uu maamulka xiisada siyaasadeed ee ka dhaxaysa hoggaanka federaaliga ah iyo dhaqdhaqaaqa halkaas ay ka wado iyo puntlandba ay markaasi uga sii darayso xiisadana waxaa la yiri kor ay ugu sii kicinaysaa mooye hoos uma dhigayso waxaan kula wadaagayaa muuqaalka xasan shire abgaal wasiirkii hore ee maaliyadda dowlad goboleedka puntland oo arrimo aad u badan oo deegaanadaas ka waramaya ila daawo muuqaalkiisa